بسم الله الرحمن الرحيم قورينتي إلهي ما هذا سكيل دمانتين سوق كاني مناسبة دني أما حفلة دني لو قبتي سنة دوكسيات كي لو كوستير يتوان يلا لو كوسقال يتوان إن هل كان وحى شيء سنلقوسين دونا سيدو معلقوت الشيء أردي جالسة بقوليات الضباطن أردي ده سوى الله همبليو دمانتين بقى إن مركب بعد إنت أنا كلمة أردني مو أنا سيجو ذا قليل بالفاتحة إنه مرنو شيخ عبد الله عبد علي oo ahaa maamulihii guud ee dugsiga Al-Furqaan Schools inta kadib horta arday waxa laga baahan yahay ugu horeyn intaan muxuu ahaay iskuulka soo galin akhlaaqdu waa qofka muxuu ahaay akhlaaqdu waxa qofka aad kula dhaqmi karto macallin kula dhaqmi karto qof walba aad kula dhaqmi karto ugu horeyn dhamaantiin ardayda waxa idinka baahan yahay inaad akhlaaqdiina dabeecadiina aad wanaajisaan sideed guul ku gaari kartaa waa qodobka labaad ee ka hadlayo guul waxaad ku gaari kartaa waa inaad naftaada ugu horeyn aad ku kalsoonaato adigu naftaada haddaanad ku kalsoonayn guul gaari maysid waa inaad ilaahayna isku xidhaa haddaad ilaahay isku xidho waalidkaa ka ducaysato guusha iyo hamiga aad leedahay waad gaaraysaa dabcan guusha muxuu ahaye waxaa la goostaa anu waxaan goostay guushida galaaskii foonka waxaad kala ogaan kartaa ma ogaan kartid markaad muxuu ahaye galaasyada primariga soo marayso shayga aad ku fiican tahay laakiin waxaad ogaanaysaa in maskaxdaada ku soo dhacaysaa markaad tahay galaaska foonka maadaama foonka muxuu ahaay waxa ku soo biray casharaan ahayn kuwii hore lagu dhigayay sida chemistry biology waxaas oo dhan waa wax kugu soo kordhaya markaasi arday waxa laga baahan yahay marka xilliga ku jirto guusha aad goosato aanad naftaadana kalsooni ku qabto haddaad naftaada kalsooni ku qabto waad guulaysanaysaa guusha waxa ka horeeya horta guul intaanad gaadhin waxa ka horeysa guul daro shayga guul daro leeyahay waxay ku gaarsiinaysaa guusha marka haddaad guul daraysato intaanad guusha gaadhin ka hor samir adkayso insha Allah guusha waad gaari doontaa kii imka ninkii leeyka sameeyay intee leeg u soo qadlamay waa garanaysaa sheekada wad muuqasheen dhamaantiin talabaad waa isku xidhnaanta waalidka iyo macallinka haddaan muxuu ahaayay macallinka iyo waalidku isku xidhnayn ardaygu wax ma baranayo taas waa xaqiiq siba baha horta waalidka dadaan muxuu ahaay hooyo maartay haddii ardayga maamulaha u timaado way ka sabasaayay hooyo waa beer laakiin markay isku xidhan yihiin aabaha iyo muxuu ahaayay maamuluhu ardaygu wax uu baranaya waa ninbu wax ku bataa isku xidhnaanta macallinka iyo ardayga waa qodobka saddexaad hadday macallinka iyo ardaygu isku xidhan yihiin oo muxuu ahaayay haddii imka cashar lagu dhigo casharka ardaydu way iska ilaawaan oo way iska dhigaan marka xiisada lagu jiro galaaska lagu jiro bay akhriyaan bas markay dibadda u baxaan hablaha ugu fiican markay nabada habliba ka badiba marka galaaska lagu jiro oo bay casharka akhriyaan waayo kubadda ku mashquulayaan wax kale ku mashquulayaan kaabada fadhiisanayaan waka muxuu ahaay waxa kala tin la xagay nabada inaad kaabada aad fadhiisanaysaa iska deysaan waayo habliweeda ka badiyeen deedo bara boolka iska tuwa qodobkayga shanaad waxa weeye waxbarashadu maxay tahay waxbarashadu waa aasaaska koobaad ee uu qofku ka dhisan karo heerkiisa mustaqbalka waayo imika dadka horumarka gaaray maxay ku horumar ku gaareen waa waxbarasho aqoon la'aan waa iftiin la'aan imika adduunka dadku waxay ku maamulaan nuclear laakiin shayga ugu horeeya lagu maamulaa waa qalin waxaad horumar ku gaaraysaa waxbarasho waxaa halkaa usoo fadhiistay inaad wax barataan maanta waxaa halkaa dhammaantiin aad fadhidaa inaad hadiyada qaadataan midhihii aad soo beerateen in hadiyad laydinku siiyo hambalyaa idin leeyahay waa dadaasheen qodobkayga lixaad waxa weeyaan iskuulku maxaa uu kaga duwan yahay iskuullada kale waayo iskuulkaan waxaa soo dhiganaya uladeydii baa kasoo bilowday qaybtaasa kasoo bilowday waa laga xasuustay uladeydii ilaa eegadanaa dhigana iminka waxaan ku faano iskuulkayga iskuulku wuxuu iskuullada kale kaga duwan yahay waa maamul fiican buu leeyahay macallimiin tayaru leeyahay oo ku takhasusay shaygan uu dhigayo tan sooran kale iskuullada kale uu kaga duwan yahay ugu fiican anigu xitaa ku soo baxay waa taawul shayga leeyahay sabaaxiga iskuul kale oon arkay oo wallahi taawulka lama jiro waa taawulka sabaaxiga leeyahay taawulka iskuullada kale ma laha waa taawul ardaygu muxuu ahaayay uu ku soo bixi karo uu wax ugu sheegi karo uu ku noqon karo siyaasi madaxweyne wax walba uu ka sheegi karo waayo waxa loo baahan yahay inaad wax dadka qanciso waxa ugu fiican ka soo baxaan
dhammaan macallimiinta aad baan u salaamayaa sheekeyn baan ka sheekeynaya ha noqonina arday nin muxuu ahaay wax cunayo iminka waxay tihi shirkad la maal gashanayo waayo waalidkiin bay dad maal gelinaya ninka shirkadaas waxa weeyaan iminka adigu waxbaad soo cunaysaa waad soo baxaysaa waxa iminka waxaa loo baahan yahay waalidkaaga waxay wax kuu siinayaan inaad dib adigu u anfacdo shirkadda ayaa waxa weeyaan muxuu ahaay sheekadaasi gabadha aabaheed buu inan buu doondoonay guursada waxa dhacday markii loo doondoonay gabadhiiba inan baa loo helay oo loo guuriyey waxa dhacday ninkii wuxuu noqday inanlayaal magarata inanlayaal buu noqday oo xaafadii inantuu degay ninkii wuxuu yihi xaafadii waxaa ii soo socotay aabbaha ayaa imanaya muxuu ahay waxaad ii keentaa ducaa kariya jecelsha ninkii baa neef baa loo qalay markii loo qalay ayaa waxa dhacday islaamihii ay qaleen islaamihi ay isugu yimid wuxuu gabadhiisi way odhan ku yidhi islaamaha iska kaletaa ku dheh way imanayaan islaamihii bay dirtay intii bay isaga isdhaafiyey waxa dhacday wuxuu u tegey muxuu ahay aabaheed bay u tagtay qisadii bay uga sheekaysay ninkan ay keentay waa nin waalan bay ku tegey cuntadii baa reerkoogii loo kariyey bay isagaa cunay odaygii waa fikre oday aqli badan buu ahaa wuxuu yihi muxuu ahaayey waxaad samaysaa inamadiisii buu yeedhay wuxuu ku yihi aabbo waynu ka tegaynaa guriga 8 ka baxanaa way ka bixin ninkii inanta la yaalayna gurigiisa way iska durkiyeen meel kale ugu dhiseen gurigii markii loo dhameeyay odayaashii 8 aroornimo iska bixin gurigii wuxuu leeyahay guri miyiga haddaad aragteen ood baa lagu wareejiyaa xoolaha ood baa loo wadaa geela ood baa loo wadaa idaha ood baa loo xeraa loo wadaa odayaashii sidii ma ku tegeen iyo nimadiisi yaa isku soo hadhay ninkii odaygii de gabadhii odaygii markay isku soo hadheen ninkii uu iska seexday casarkii buu soo kacay casarkii bay gabadhii toostay waxay ku tiri gurigeen banaan buu ku yaalaa libaxiina uu joogana keyntii watay noo dhow xoolihiina banaankaasay joogaan xero wad ninkii baa soo kacay wuxuu yihi marka odaygani wuxuu kala ogaanayaa ninkani inuu waxaanu cunay wax ku qabanayo ninkii baa soo toosay gudmee isoo dhib buuri gudmihii markuu usoo dhibaayo waxa dhacday gudmo jajaban buu hayo jiridda geedka jirid buu leeyay jirid ka hooseysa jiriddii gudmihii la dhacay geedka waxa loo gooyaa markay dadka miyigu goynayaan laan baa loo gooyaa isagu jiriddii u goys yiri wuxuu soo gudintii soo jabtay waxa fidib soo celiyay marka soo jabtay buu ku yiri baalka muxuu ahaayay sariir waxa jirta udubbo saalo dul dhigniga qoyo oo sariir miyiga la dhaca wuxuu ku yiri baasha sariirta waxa ku jirta faas ku jirayso saar dawada halisoo soo istay inta la deeyo qaadi karinba waxa dhacday baasha way soo saartay wuxuu tagay keyntii buu galay geedka xagga laamihii lagu geeyay lagu jiridii gooy gab uu soo jiiday gurigii uu keenay gurigii soo wareejiyay xerada buu waday wax walba waday waayo ninkii cuntadii uu cunay waxba ku qabtay adna waxa lagaga baahan yahay waalidkaaga waxaan ku siinayaan inaad wax ku qabsato adigu naftaada ku anfacdo mustaqbalkaaga ku anfacdo waalidkaagana ku anfacdo odaygii baa soo galay odaygii yidhi habeenkii markii state buu soo yidhi state uu soo yidhi wuxuu yidhi heblaayo odaga go odaga qaadi kari weyday waa nin xoogin baa soo galo jiriday muxuu ahaay dee jiitin magaraasan jiitinta waxa lagu haadan faayay kaniga dawada jiitin mu ku dhigay meesha meel ayo meel oday kasoo guruguroway aroortii markii soo suuri ninkan uu fiican yahay wixii uu cunay waxba kugu qabtay markay ninkan waxa kula talin aniga iyo nafihiinaba inaad muxaayad dadaashaan mustaqbalkiina aad ka fikiraan waalidiintiina aad dhiban waalidku waxa la jannada aakhirataala waalidkii taala waa inaad muxuu ahay waalidkaa ka ducaysataa waa inaad ilaahay ku xidhnaataa markaa waad guulaysanaysaa dhammaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu